السلام عليكم soo dhawaada asxaabta waxaan idin soo turjumay aniga Aftaax Jar sheekadu waxay noo marisay John Carter oo qoriga la soo baxay waxaan la soo baxay qorigeygii oo waxaan bilaabay inaan rasaas ka rido markaas kooxdii albaysteenka ahayd ay ila yaabeen oo yaga wax ka deeyeen faraskayga ayana markuu siiyay in xirada iyo halkii baal dhex jiifay dhex geeyo markaan baal dul tagay ayaan garabka qabtay oo faraskii si hal ilaa dusha uga saaray faraskaygii baan kula hadlay inuu xawaaraha ugu badan ee waawado wala dhaqaaqo kooxdii sacal baysteenka ahayd waxay ogaadeen inaan ahay nin qura oo aysan cidi u helin waxayna bilaabeen inay soo raacdaystaan oo ay soo raad guraan si lama filaan ayaan uga soo dhacay dhul wadooyinkiisu qaab xun yihiin oo ay adag tahay in farasku qoobka si fiican u dhigto wadada aan ku socday ayaa marka si damsi kor u soo kacay 100 mitir markaan si kor u soo socday ayaan gaadhay god weyn afkiisa waxaan markaas dilaacay subaxii waan ka digay faraskaygii anigoo saaxiibkay baal dhulka ka soo dhigay faraska waxaan u holaday inaan biyo siiyo laakiin waa iga qaadan waayay waxaan si garowsay saaxiibkay baal mar horeba uu dhintay oo ruux daay meydkiisii baan godka afkiisa dhigay anigana hore ayaan godka u sii galay maadaama cadow yeeryanayay waxaan bilaabay inaan godka saa ku sameeyo anigoo markaas si raadinaya meel aan ku badbaadi karo ama xitaa aan ku baxsan karo laakiin midda la yaab kale ayaa waxay ahayd waxaan si degdeg ah isaaqdo hurdo daran taasoo igula hadlaysay inaan madaxa dhulka dhigo jirkayga ayaa cuslaaday waxaaba dib igu noqotay inaan dhaqdhaqaaqo sidaa daraadeed ayaan isku tiiriyay godka qarkiisii waxaan sidoo kale gartay in xitaa gacmaha iyo lugu nuuxsi aanu ka jirin waxaan wajigay ku soo cabiray godka afkiisa waxaan arkayay qayb ka mid ah wadadii meesha ay keentay anigoo ilaaleynayay kooxdii soo dabahaysay nasiib darro way arkay laakiin waxaan qaban karayay ma jirin daqiiqad gudaheedna mid ka mid ah ayaa dhankaygii soo beegsaday waa uu fiiriyay laakiin uma soo dhawaan indhihiisu waxay ahaayeen kuwo cabsi ka muuqato afkana waa uu kala hayay sidii baal xayawaan kale u dilan yahay gadaasheeda ayuu fiiriyay isla markiiba kadibna waa u cararay taasoo qudhayda iga yaabisay anigoo waxba hareeraha eeginba si degdeg ah waxa dhagahayga u soo dhacay cod hoose oo nuxuus ah oo gadaasheeda ka yimanayay intii kale ee kooxda calibaysteen ka mid ka ahayd iyana cagahayay wax ka dayay qayladii gadaasheeda waa godka dhexdiisii ka burqanaysay wayba ka sii dartay oo markan dhagajabis ayay gaadhay laakiin anigu weli dhaqdhaqaaq ma samayn karayn mana awooday inaan jallaaco waxa gadaasheeda ka yeedhayay maalintii oo dhanna xaaladaas ayaan ku sugnaa mar kale ayaa isku dayay inaan madaxa kor u qaado waan si awoodi waayay waxaanse maqlayay in codku ka sii daray wuxuuna markan u ekaaday sidii biro la jabinaya waxaan xoogaa awood ah u yeeshay inaan istaago anigoo kaashanaya derbiga godkaygaan ku jiray waxaan eegay meeshay jabaqdu ka socotay mise waxaaba taa ka sii daran jidhkayga oo isbedelay waxaan ka baqday xitaa inaan taabto korkayga qayladii ka socotay godka iyo muuqaalka jidhkayga ayaa igu qasbay inaan dibadda u soo baxo laakiin tartiib ayaan godka ugu laabanayay oo waxay jiidayay wax aanan arki karin habeenkaas jawiga deegaanka Arizona ayaan fiiriyay waxaan arki karayay xidiga fara badan iyo weliba muuqaalo iga yaabiyay oo ahaa meerayaal dhulala kuwaasoo gudgududan qaarkoodna kalaro kala lahaa oo samada iga muuqanayay sidii aan daawashada ugu jiray ayaan daqiiqad gudaheeda indhahayga xidhmeen waxaana yimi qabow daran iyo weliba mugdi haddii shifarta laga geliyana aadan waxba arki karin si lama filaan ayay hurdo qoto dheer igu soo degtay mana garanayo wixii markaasi kadib dhacay waxaase indhaha ku kala qaaday anigoo jooga dhul la yaab leh isla markaana waxaan garowsaday inaan joogo dhul ka mid ah meerayaasha adduunka xaqiiqadu waxay tahay su-aal iskama weydiin laakiin maskaxdaydu waxay ii sheegtay inaan meero dul saaranahay siday maskaxdaada kugu sheegi lahayd inaad dhul ku sugan tahay waxaan is arkayay anigoo dul jiifa sariir caws ka samaysan oo kalarkeedu yahay jaalle isla markaana ku fadhida dhowr kiiloomitir ah waqtigu waxaa ku qiyaasay maalin bartankeed qoraxda dusheeda ayay ka ifisay oo waxay ahayd mid diiran waxaan go'aansaday inaan dhandheeyo halka aan ku suganahay siday tahay istaag baan maagay oo waxay daftay hawada anigoo dhowr fii dusha sare u baxay waxaan helay layaabkii ugu horreeyay meerayaasha dushooda qaybta labaad halka ay noogu joogto daawada sheekadan xiisaha badan waa taxane la soco qaybta saddexaad oo kasii xiiso badan tan daawada haddaad fiidiyowga ka hesha like saar haddaad nagu cusubtayna subscribe saar oo nagu soo biir wassalaamu calaykum